أحمد مدوبي سيديسبا ومشروع أجنبي oo lagu beeray Soomaaliya Soomaaliyana ku nool hada si kale kugu dhigo Axmedoobe waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo maalintaasina Soomaaliya hagaagaysaa Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan wanaagsan ku soo dhawaada wararka maanta inay heen Fahad Yaasiin oo baryahan dambe warkiisa maalmahan waliba u dambeysay warkiisa la dooreystay oo waliba qayb loo soo gelinayay ayaa maanta ka dhawaajiyay war ka mid ah oo ahaa inuu ku beeniyay wararkii la sheegayay in badanba ku jira baraha bulshada intii madaxweynaha Farmaajo uu xilka hayay isku dhacsanayaan Axmed Madoobe kaasoo uu ku sheegay inuu wixii uu maartay la dagaaltamayay ay ka mid ahayd musuqmaasuqiin iyo maartay iyo dawladda shisheeye oo waliba aad si xun faragelin ugu hayay ay ku adeegsanayaan xilka Axmed Madoobe iyo Jubbaland waliba uu ku sheegay markii ay xirayaan hawada ay ka mid ahayd musuqmaasuqiin iyo faragelintii oo kuwaas oo uu sheegay inay diyaaradihii hawada ay iska soo galayeen sharci darre kuwaas oo loogu dan lahaa inay wixii sharci darre wadankaas ka soo galay la xiro oo loogu talnayn qaas ahaan Jubbaland taada kale wuxuu sheegay inuu Axmed Madoobe uu yahay kansar hadalku uu isticmaalay kaasa ka mid aha kansar uu yahay wadankana in laga qabto ma ogi Axmed Madoobe dib uu ku wajahan yahay waayo wuxuu sheegay inuu saddex dawlad oo hadda soo gashay uu ka soo horjooday sababtoo ay tahdane meesha wuxuu u joogo inuu wadanka qaas ahaan Kenya oo meesha u joogo oo wixii interest ahaa marsan wixii muhiimdantii markii ay ka weeyaan asaga la isticmaalayo laguna isticmaalayo dagaal lagu dagaalayo wadankii waayo Kenya hadii soo kacdo si waji ka waji ay kulama dagaalayso balse wixii ay isticmaalayso waa madaxweynaha gobolka Jubbaland Axmed Madoobe kaasoo dagaal weyn kula jiray in muddo ah kana soo horjooday dawladda Farmaajo waxyaalo badan ka soo hor imaaday oo aan ognahay doorashadii Jubbaland hataa ay si wanaagan ay ku dhamaanin oo Axmed Madoobe xoog uu iskaga soo noqday kadibna Farmaajo uu inuu samro danta iskaga qasabtay asagoo waliba uu sheegay inay 2 sano loogu daray asagoo sheegay inay wixii Axmed Madoobe ay ahayd in 2 sano loogu daray oo ku meel gaar ay tahdo oo Farmaajo hadda soo noqon lahaa ay ka mid ahaan lahayd waxyaalihii uu ka bedeli lahaa misna uu ka qaban lahaa wadanka balse may dhicin waayo hadda Farmaajo waa uu dhacay waana ognahay dawladda Kenya inay qayb weyn ka qaadatay xilka qaadka madaxweynaha Farmaajo taada kale wuxuu sheegay inay Puntland ayadana ay aad ugu qasaartay garab istaagii dawladda Axmed Madoobe ee Jubbaland inay aad ugu qasaartay waayo wax ma aragtay dawlad kale oo misna shakhsi kale misna wadan kale oo meel kale ka imaado in wadankaada lagu burburiyo oo aad ka hor imaato adigoo fiirinayso dan shakhsiyeed aadana fiirinaynin wadanka adigoo fiirinaynin ay kala garab istaageen waxayna ku garab istaageen waa sharci darri iyo dan xumi oo wadankii ninkastaba ay iska tahay muhiimadeeda inay tiiso iyo xilkiisaba uu fiirsanayo misna uu doorsanayo wuxuu sheegay inuu hadda la taagan yahay uu Axmed Madoobe uu saaid wadankii inuu xumaato misna faadba uu wajahi doono waayo wixii uu shaqeynayo waa dawladdiina aan ahayn dawlad Soomaaliya iyo danta Soomaaliya maadaama uu madaxweyne uu wadanka ka yahay oo gobol madaxweyne uu ka yahay wixii uu ku shaqeynayna ay tahay wadan kale dantiisi iyo interest wadanka uu ka leeyahay meeshaan uu u joogo sidii uu Soomaaliya horumarkeeda u hor istaagi lahaa ayuu sheegay waxa kale oo asaga hadalku ku soo darsaday inay Axmed Madoobe wadankaas laga qabto oo hadda la taagan yahay Xasan Sheekh oo hadda shalay uu soo doortay haddana ka hor imaan karo hadii dantii iyo muhiimadii wadanka kale ee dariska oo Kenya oo waliba asaga aad ugu shaqeynayo wadanka gudihiisa asagoo isticmaalaya madaxweynimada misna madaxweynimada ee Jubbaland uu isticmaalayo taasna uu kula dagaalayo madaxweyne kasta oo ka hor imaado misna dantii ee wadanka kale ee Kenya ay
meeshii uu ka waayo misna ay ka waayaan asagiiba la isticmaalayo oo wuxuu meesha u joogabo adig aan ku dhaho eeba tahdo dan shakhsiyeed iyo dan waddan kale oona ahayn waddankii dhibka ku jiray burburka soo maray rafaadka soo maray sidii loo bedeli lahaa nin kasta oo waddankaas bal inuu wax ka qabto isku dayane ka hor imaashadiisii iyo asagiiba lugagal lugaha inuu u galo isagoo isticmaalayo waddanka dariska xubkiisii iyo hantidiisaba isticmaalayo ayuu meesha ku joogaa haddii laga qaban waayo oo axmed madoobe la iska qaban waayo wuxuu sheegay inay waddanka halis ugu jiro taasna marnaba laga baxaynin uunan war walbaba mase waqti walbaba axmed madoobe uu rafaad masanaha dhibkii iyo dabarjibinkii iyo aan ku dhahe gadaal u reebkii waddanka uu ka mid yahay marka daawade waxaan ku weydiiyey haddii madax baan doorannaa annagana amnigaanagii iyo horumarkii iyo isbeddelkii waddanka waan ognahay rafaadkii iyo dhibka uu soo maray ayaan damacsannahay inuu wax uu ka bedelo laakiin nin aad leedahay wax inuu bedelo laakiin adigii kaa soo horjoodo oo horumarkaagii iyo isbeddelkii waddanka uu isbedelayay iyo qof waddanka inuu bedelo u soo kacay inuu gadaal u qabto mase looga qabasho uu meesha u joogo xubnihii uu xubinta u hayana xubin aad u muhiimsan oo waddanka aad uga muhiimsan waayo gobol idil buu madaxweyne u yahay may kula tahay waxaas misena arrintaas arrin muhiim ah misena arrin fiican inay noo tahay anaga shacibka haddii aan nahno waayo waa haddii uu xubin ka mid Soomaaliya ay ka maqan tahay waan ognahay shabaab inay tuuran tahay mase ay u badan tahay damaanta la joogo gobolka Jubbaland taas oo weliba ay kalifayso waayo haddii waddankii asagaba uu xirtay dhinac uu ka xirtay dhinacuu ka xirtana uu leeyahay hal iisoo dhaafin asagoo isticmaalayo dowlad daris danteed iyo hantideed isticmaalayo ma leedahay waxba iska bedeli ilaa ma ogi ninkaas meesha la dhaafiyo ku quman yaho oo haddii waddankii nin walbo meel buu taagan yahay nin walbo gobol buu qabsadee waddan meeshii uu ka joogo ha maamusho faraha looga qaado miyaa la is leeyahay intaana waxaa uga bixinaa wararka maanta ayniin hayno kulanti wacan oo wanaagsan dambe oo xiiso leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu